doorashada Soomaaliya oo noqotay mashruuci faanoole ay maalin kasta ku imaanaysa arrin keeni karta daahitaan hor leh xilli ay taagan tahay hawsha gobolka Gado oo aan ilaa hadda wax xal ah laga gaarin. waxaa geesta kala soo korortay arrinta afarta kursi ee ay hakiyeen guddiga doorashooyinka heer federaal kuwaasi oo ay sheegeen in aan loo marin habraaci lagu heshiiyey. kuraastan oo saddex ka mid ah laga leeyahay maamulka Koonfur Galbeed midka kalena laga leeyahay Hirshabeelle ayaa caqabad ku noqday qaadashada shahaadada ee xildhibaanada kadib markii xildhibaanada Koonfur Galbeed ay diideen in ay qaataan shahaadada isla mar ahaantaana ay bay isaga baxeen caasimadda dalka ay Muqdisho halkaasi oo ay ka socotay hawsha shahaado bixinta. xaalka ayaa si adkaaday kadib markii uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen uu sheegay inuu xiriirkii u jaray wada shaqayntii kala dhaxaysay ra'iisul wasaare Roble oo isagu u xil saarnaa qabashada doorashada iyo howlaheedaba. sidoo kale Laftagareen oo hadal jeediyay Khamiistii ayaa sheegay in loo beegsanayo hayb ahaan oo maamulkiisa la takorayo isagoo ku calaacalay in aan waxba laga qaban boobkii qawnaa ee ka dhacay deegaanada qaar sida Puntland. inta kadib xubno xildhibaano ah oo ka tirsan labada aqal ee dooran ayaa u kacay sidii ay xal ugu heli lahaayeen khilaafka kuraastan ka taagan. xildhibaanadan oo ay ka mid ahaayeen Dhagdheer, Mahad Salaad, Mahad Cabdalla Cawd iyo qaar kale ayaa tagay magaalada Dhuusumareeb iyagoona halkaasi ka soo waday madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ah shakhsigu ay aad isugu dhow yihiin Laftagareen. wafdigan xaldoonka ah oo shalay galinkii dambe ka degay Baydhabo ayaa la rajaynayaa in ay guda galaan sidii loo heli lahaa xal kama dambays ah oo kuraastan laga gaaro si loogu socdo meesha hadda la taagan yahay looguna baaqsado dib u dhac kale oo sababa in ay sii daba dheeraato doorashadu. balse waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo qaabka uu u doonayo xalka laga gaaro kuraastan buuqa dhalisay. dadka qaar ayaa qaba in kuraastan la kala qaybsan doono oo mid ka mid ah la sii doono gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ama wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac. Laftagareen loogu fuqi doono labada kursi ee kale. waxaase jirta cabsi sheegaysa in aanu Laftagareen aqbali doonin in Jawaari ama Jaamac midkoodna uu yimaado baarlamaanka taasi oo uu arko geeri iyo mid dhaawacaysa damiciisa maadaama labada ninba ay yihiin siyaasiyiin miisaan leh oo sababi kara in ay tartan u galaan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. arrin kale ayaa sheegaysa in xildhibaanadan isxilqaamay ay xal ka dhigi doonaan in Laftagareen uu fasaxo xildhibaanada isagana loogu fuqo kuraasta taasi oo ah sida uu doonayay Cabdicasiis Laftagareen. maalmaha soo aadan ayaa la rajaynayaa go'aanada kama dambaysta ah ee ka soo baxa Baydhabo iyo waxa ay la soo shir yimaadaan kooxdan isxilqaantay.